marka la eega halbeega wax lagu cabiro dadku isku aragti kama ahan cabitaanka qaxwada iyo waliba waxyaabaha ay soo kordhin karto iyo manaaficaadka ay u leedahay aadanaha. dadka qaar ayaa u baahan 3 koob oo qaxwo ah si ay u gutaan waajibaadka shaqo ee maalinlaha ah, halka inta kale oo badanna ay ku filan tahay 1 koob oo kaliya oo aysan u baahnayn wax ka badan koob qaxwo ah. sababtan waxay jawaab u tahay daraasad cusub oo tilmaamaysa inay jiraan waxyaabo badan oo lala xiriirin karo jacaylka dadka ee ku aadan qaxwada, gaar ahaana isticmaalka qaxwada xilliyada aroortii iyo gabaldhici. baaritaankan oo lagu sameeyay dalka Mareykanka shaybaar ku yaalo ayaa lagu sheegay in dhaxalka iyo deegaankuba kaalin weyn ka qaataan in qofka uu jeclaan karo cabitaanka qaxwada. Powell Williams oo ah khabiirka sameeyay daraasadan ayaa tilmaamay in deegaanka qofka uu ku nool yahay lagu tirin karo sababta koobaad ee ku riixaysa aadanaha jacaylka ay u qabaan qaxwada, isagoo intaasi raaciyay in qofka uu noqon karo mid dhaxal ahaan uu ku dhex abuuran yahay jacaylka qaxwada iyada oo loo fiirinayo dhalashadiisii hore iyo waliba halka uu ka soo jeedo. natiijada baaritaankan ayaa laga helay in ka badan 4,000 oo qof, kuwaas oo laga wareystay habnololeedkooda iyo waliba sida qaxwadu ay saameyn ugu leedahay naftooda, iyadoo laga cabir qaadanayo waxtarka ay qaxwada yeelan karto haddii ay cabaan, sidoo kalena waxa ay dareemi karaan haddii ay ka tagaan cabitaanka qaxwada. baaritaano hore ayaa muujinayay in deegaanka, da'da iyo jinsiga ay saameyn ku leeyihiin jacaylka qofka uu qabi kara qaxwada.